نبينا كل شيء كالكائن تاسع سلام من الله عليكم ورحمة الله وبركاته. ثلاث من كذب وحافظ حقيقة إن أنصور استاغوا اليد إيقايو إن أيوم بسرق السيد صودبان ما أقول يوم عليمين مدى شاكي تجوتا مرنا مكمدى إذن مع سلامي مرحبين على الكدر أقيال إذن أهاتينا ويلن يوجد كل صودبان برنامج يا قروح بدر أي كتلك فصلك أما فصلك أفراد سريع سلامة ولما جاء بحيثات المدرسة ونهاتي آدنا دوح الأمر وقت باو خالصا ودفتر انت جوتنا وقت قوض صوفرين وابتاني صوقلين وهلكين صون عزين وحاد نقم مددين وحاد نقم مددين قلن يقديسا لغو مصوفا بكريه كريمو إله بتقول كأنك يسالي أدو مدي سنبيه شيء مالكو إله مدشا انت جوتنا وحاد الكمرين معموله سلام مرugada ka ilaali madaxooda shaqo yeel waxaan soo dhaweynayaa maamulaha sharafta iyo qiimaha badan leh hadana u soo gunta xirtay si aan anagu ku noqon lahayn dad aqoon-yahana ah kana soo sabray dibkii aan anagu wax ku soo baranay mida xigta waxaan soo dhaweynayaa aabiyaashaynu labaad taamicnaheedu ay tahay macallimiinteenu kuwaasoo alle u sababay inay bulshada quruxdeena ay u soo muujiyaan haddana dadaal dheeraad ah ku bixiyey si aan anagu ku noqon lahayn kuwii bedeli lahaa berito sidoo kale waxaanan ka marnayn inaan soo dhaweeyo ardadii aan wax isla soo baran jirnay sidoo kale waxaan si khaas ah u soo dhaweynayaa masterka form 4 macallin cabdalle waxaan idin leeyahay soo dhawaada soo dhaweyn kadib maanta oo ah maalin talaado ah waxaan fursad u helnay inaan barnaamij sagootina idin soo bandhigno anagoo ah fasalka afraad ee dugsiga sare ee Salaama sidoo kale maanta inkastoo ay tahay maalintii ugu dambeysay ee aan halkaani barnaamij ka soo jeedino waxaan idinka codsanaynaa inaad barnaamijkeena si halal ah ula socotaan waxaan idin leeyahay uraxibakum limasraxatin uquufi uraxibakum wa antum fi cuyuuni uraxibakum wa fi qalbi sururi مرحبكم سجوني ألا يا إخوة الإسلام أهلا waxaan soo gaaray qaybtii ugu dambeyd so today is my last day that I'm gonna appear in front of you, so I ain't gonna continue my khutbah. I request to recognize every single one or every person who is not aware of my situation. Really, I know I'm a human being. I made a mistake, I believe that. So please forgive me for every mistake that I have done to you. So, waxaan idin leeyahay soo dhawaada. أمين عبد الفتاح إبراهيم oo ku magac dheer amiin kayman aad iyo aad ayaad u mahadsan tahay amiin ajarna allaha kaa siiyo annagana waan kugu daysan doonaa فرح هذا اليوم يحيينا فهذا اليوم يحيينا أتخرجنا دعونا الله يحمينا ويبلغ qodobkii saddexaad ahaana khudbad ku saabsan macaanka ay leedahay waxbarashada iyo heerka aan ka gaarnay maanta waxaa inoo soo jeedin doona hadduu eebba ka raalli noqdo fuhaad maxamed cabdullaahi fahad albasraawi falyatafadal.
أولا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد وجوهرين مامور معلمين يو أرديبا وحان إذن ليهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. maanta oo ah maalin talaado taariikhduna ay ku beegan tahay 2018 bisha shanaad ay marayso maanta waxaan doonayaa in aan halkan ka soo jeediyo khudbad la magac baxday dhiirigelinta waxbarashada iyo aadaabteeda. ka hor inta khudbada la bilaabin waxaan idinka codsanayaa in aad si fiican u dhegaysataan si aan u soo dufo wax alaala wixii muhiim ahaa ee caloosheeda ku jiray sida badda ay u soo tufta dadka. run ahaantii waxbarashadu uma fududa sida cayaarta oo kale maxaa yeelay waxa ay u baahan tahay dadaal iyo kalsooni waana waxa ay dadka ay ku kala horumarsan yihiin. الله سبحانه وتعالى وحوليه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون ميسمين dadka wax iyo dadka aan wax ogeyn. xagaag khudbadan waxaan doonayaa in aan ka hadlo 6 qodob oo muhiim ah. qodobka koowaad ayaa waxa uu yahay ardaydu run ahaantii waa ay yaaban yihiin maxaa yeelay ma yaqaanin ama ma oga waxa ay tahay waxbarashadu mana oga dhibaatada ay leedahay waxbarashadu iyo wixii ka dambeeya. tusaale ahaan ardaydu maanta wiil iyo gabar tusaale waa uu soo kacayaa subaxii waxa uu soo aadayaa goobta wax lagu barto asigoon ujeedkiisa ahayn in uu maanta wax ku soo kordho waxbarashada maxaa yeelay maba oga. sidaas daraaddeed 5 farood isku mid ma ahan sidaas si la mid ah ardaduna isku mid ma ahan waa 5 farood oo kale. waxaa jiro arday aad iyo aad u dadaal badan iyo arday wuu rabaa inuu dadaalo laakiin ma haysto qof ku dhiirigeliyo dadaalkaas. sidaas awgeed waxaa loo baahan yahay haddii aad tahay ardayga fiican waa inaad dhiirigelisaa ardayga kale si uu u noqdo adiga oo kale. qodobka labaad haddii aad rabto inaad wax barato waa in laga helaa 2 walxo kuwaasoo ah midda koowaad waxay tahay niyad waa in laga helaa niyadaasoo ku sheegayso in aad wax baran kartid. markii aad aragto ama niyadaada ay ku siiso in aad wax barato kadib qodobka labaad ama shayga labaad laga rabo wuxuu yahay in aad go'aan lahaato go'aankaasoo ku saabsan in waxbarashadu aad heer ka gaarto. haddii intaasi laga helo labada qodob ugu muhiimsan waa laga helay. waxaa jiro qodob kale oo ku saabsan
waxbarashadu taasoo ah in laga helo dulqaad haddii kale go-aanka aad gaartay kama dhabeen ways haddii ilaa yidhaahdo qodobka saddexaad ayaa wuxuu yahay waa qodobka hadda aan arkay aniga kadib markaan sameeyey baaritaan dheer aan ku sameeyey ardada wax barata waxa uu yahay waxaa jiro ardayo wax iska barta waxbarashaduna daacad aysan u ahayn hadda adigu waxaa laga